odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka Jubbaland gaar ahaan magaalada Kismaayo ayaa maanta si weyn u soo dhaweeyay Islaan Haashim, Islaan Maxamed, Islaan Cabdullaahi oo ka mid ah isimada Soomaaliyeed kaas oo maanta ay ka soo degay garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo. Odayaal, haween, dhalinyaro iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Jubbaland ayaana si diiran ugu soo dhaweysay islaanka garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo. Ugu horeyn waxa goobta hadal kooban ka soo jeediyay qaar ka mid ah odayaashii dhaqanka ee islaanka ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo iyo haween kuwaasi oo sheegay in imaatinka islaanku uu wax weyn ka bedeli doono beesha uu islaanka u yahay iyo guud ahaan deegaanada Jubbaland. waxaan leeyahay soo dhaweynaynaa halkan ku soo dhaweynaynaa isinkeena beesha Nuux Maxamuud, Islaan Haashim, Islaan Maxamed, Islaan Cabdullaahi, Islaan soo dhawow gacmo furan ku soo dhawow aan ku leenahay. waxaan halkan ku soo dhaweynaynaa Islaan Haashim, Islaan Maxamed, Islaan Cabdullaahi xidig. Islaan soo dhawow waa qolkiiba boqol aan kugu soo dhaweynaynaa dadkii aad ka dhalatay iyo dadkii deegaanka laguma kala harin soo dhaweyntaada waa u dhannahay waana kugu soo dhaweynaynaa Kismaayo haddana howlahayna waa sii wada doonaa. Islaan Haashim ayaan ku soo dhaweynaa. Islaan Haashim ku soo dhawow Kismaayo oo magaaladaadii baan kugu soo dhaweynaynaa. ku soo dhawow si farxad iyo walaalnimo iyo soo dhaweyn iyo qalbi furan ku soo dhawow Kismaayo oo nabada ku soo dhawow. amniga iyo xasiloonida magaalada ka jirto iyo maamul wanaagga ka jiro magaalada, maamulka amniga iyo safety-ga meesha ka jira ay noo soo xasiliyaan. shacabka waxaan ugu baaqaynaa inay ka faa'iidaystaan oo amniga waa la wada leeyahay, la wada dhowro amniga. xilliyo doorasho iyo waxbaa lagu jiraa, xilliyadaas yaan laydinkaga faa'iidaysanin. waxaan salaamayaa Soomaalida dhammaan dal iyo dibad. waan salaamayaa 114 baan ku salaamayaa anigoo ku hadlaya afka haweenka qaas ahaan Jubbaland. waxaan leeyahay isimka soo dhawaaw, isimka guud waxaad tahay isimka guud ee Jubbaland lagu soo dhaweeyay, ma noqon doontid isim beelu leedahay. maanta waxaan soo dhaweynaynaa saxuurteena aad iyo aad ay u kacsan tahay. waxaan soo dhaweynayaa Islaan Haashim, Islaan Maxamed, waxaan ku soo dhaweynayaa labarkoyna magaalada Kismaayo. aad iyo aad aan u faraxsanahay saxuurteen lama soo koobi karo. maasha Allah isin gacmo furan ku soo dhawow waa dalkaaga waa dadkaaga Jubbaland ku soo dhawow. Islaan Haashim, Islaan Maxamed, Islaan Cabdullaahi oo gabagabadii goobta ka hadlay ayaa uga mahadceliyay bulshadii soo dhaweysay isagoona sheegay in kulamo gooni-gooniya uu la qaadan doono qaybaha kala duwan ee bulshada Jubbaland gaar ahaan magaalada Kismaayo. aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin reer Kismaayo soo dhaweynta ay soo dhaweyseen. aad iyo aadaan ugu faraxsanahay dhulka hooyo inaan imaado. insha Allahu tacaala waxaan ku wada hadli doonaa gudaha Kismaayo, shaqadeena hore u sii wadan doonaa insha Allahu tacaala. allahna na garab qabto. Aadan Maxamed Salaad, raadiyaha telefishinka qaranka magaalada Kismaayo.